السلام عليكم داود الكسر دوادا مدكبدا عشردي كسابسنا برشدا لغة إنجليزية عشر كان وقيبتي شناد عشردي تحنا هاي conversation أما ودا شيكيسيغا لغة إنجليزية لابا قف شيكيسانيسا marka wuxuu ku bilaabanaya sidatan waxa hadalka bilaabaya wuxuu yiri hey Steve, what is your plan for tonight? wuxuu yiri hey Steve waxaan ahay ama hi Steve waa salaantooda luqada ingiriisiga. Steve na waa magaca marka. Hey Steve oo kale waaye, what is your plan for tonight? waa maxay qorshahaada caawa marka. qof baa wuxuu weydiiyey Steve nin la yiraahdo ayaa wuxuu weydiiyey what is your plan for tonight? waa maxay qorshahaada caawa marka. ama caawa maxaad qorshahaada leedahay, maxaad qabanaysaa, maxaad qorshahaada muxuu yahay caawa. bee wuxuu yiri I don't have any plans. wax qorshe ah ma lihi marka. wax qorshooyin ah hada plans waxa weeye waa qorshooyin. I don't have ma lihi any plans marka wax qorshooyin ah ma lihi marka. Are you doing anything especially? miyaad qabanaysaa ayuu sii weydiiyey markuu yiri qorshe ma lihi wuxuu weydiiyey are you doing miyaad qabanaysaa ama sameynaysaa anything especially wax khaas ah miyaad sameynaysaa marka. wuxuu yiri well hagaag. well waxaan dhahnay waa hagaag. all right ama well intaba waa hagaag marka. if you are bored wuxuu yiri marka if you are bored haddii aad caajistay marka. bored waxa weeye waa caajis marka qof marka uu caajis qabto ayaa la yiraahdaa marka. if you are bored marka haddii aad caajistay let's plan on meeting up tonight. marka wuxuu yiri haddii aad caajistay nakeen ama aan qorsheyno kulan marka. let's waxa weeye nakeen waa marka. plan on meeting aan qorsheyno marka kulan meeting up kulan aan qorsheyno tonight caawa marka. wuxuu yiri maadaama haddii aad caajistay if waxaan dhahnay if you are bored waxaan dhahnay haddii aad caajistay let's plan on meeting up tonight nakeen aan qorsheyno marka kulan marka caawa. bee wuxuu yiri that sounds like a good idea. arrintaasi waxay marka u muuqataa marka fikrad aad u wanaagsan marka ama fikrad wanaagsan ayay u muuqataa marka. that sounds like taasi waxay u muuqataa marka. that sounds like taasi waxay u muuqataa marka dhawaqaasi ama maqalkaasi wuxuu u muuqdaa marka a good idea fikrad ama aragti wanaagsan ay u muuqataa marka. should we invite Pop? maczuuna marka Pop ninkan la yiraahdo marka. Pop waxa weeye kulay waa mid saaxiibkooda ah marka ama qof ay garanayaan marka. marka wuxuu should we invite waxaan dhahnay waa casuumid marka. maczuuna marka ninkan la yiraahdo Pop marka. wuxuu yiri he is a little boring. wuu yara marka boring uu yaro marka caajisan yahay marka ninka marka. he is waa asiga Popki ayaa loola jeedaa a little boring xoogaha wuu yaro marka caajisan yahay marka. what do you mean? maxaad ula jeedaa ayuu yiri marka. ninkaasi wuu caajisan yahay maxaa ula jeedaa marka. what do you mean marka maxaa ula jeedaa taa. what do you mean waxaa leedahay markii waxaad garanaynin aadan fahmin qofka aad sii weydiinayso ayaa leedahay what do you mean maxaad ula jeedaa marka. well hagaag. he doesn't drink. asiga ma cabo marka. drinkna waxaa loola jeedaa markii qamriga ayaa loola jeedaa marka. laakiin cabitaanka biyaha caadiga loolama jeedo hadda. well wuxuu yiri he doesn't drink. asiga ma cabo marka qamri ma cabo. play video games isla markaana mana ciyaaro marka video games. pool ama poolka waxa la yiraahdaa bilyaardiga marka. halkan la ciyaaro bilyaardiga lagu ciyaaro ayaa pool la yiraahdaa marka. sidoo kale buushan waxay noqotaa pool waxay noqotaa meesha birkada wax lagu ciyaaro way noqotaa ama swimming pool hadii laakiin swimming pool ayaa raacaysa marka. waxay noqonaysaa birkada lagu dabaasho ay noqonaysaa laakiin hadda meesha waxay ugu jirtaa bahalkan bilyaardiga lagu ciyaaro ayaa hadda meesha ugu jirtaa marka. ninkaasi waxa uu leeyahay ma cabo qamriga ma cabo
isla markaasna video games ka ma ciyaaro video games waxa weeye video games ka la ciyaaro sidoo kale billiardigana ma ciyaaro ayuu leeyahay marka or amase really wuxuu leeyahay marka xaqiiqdii anything waxba ma sameeyo marka ninkaas yani macabo sidoo kale video games ka ma ciyaaro billiardiga ma ciyaaro sidoo kale waxba ma qabto uu leeyahay marka the only thing wax kaliya uu ninkaas marka he talks uu ka hadlo waxa weeye about wax ku saabsan is history marka wuxuu leeyahay wax kaliya ninkaas ka hadlo inta badan waa taariikhda ayuu leeyahay marka laakiin wax kale uu sameeyo ma balahan sidaa darteed waa qof marka caajis ah marka baa wuxuu yidhi marka you do have a point wuxuu leeyahay marka waa inaad ballan u qabataa marka ballan ayuu leeyahay marka waa inaad u qabataa you do waa inaad sameysaa have a point waqti ama ballan waa inaad u qabataa ayuu leeyahay we will leave him out tonight marka waxaan u wadaynaa asiga marka banaanka ayuu leeyahay marka waa inaad u sheegtaa ama aad wargelisaa waqtiga appointi waa inaad u qabataa u sheegtaa marka si aan caawa banaanka ugu wadno ayuu leeyahay marka leave out waxaanay waa sida take out oo kale ama qof markii ama waxa markii banaanka loo qaadayo ayaa leeyahay marka wuxuu yiri marka all right hagaag all right waxa dhahnay iyadana waa hagaag let's meet wuxuu yiri marka aan kulanno 8:30 ama 8:00 in the front of the university bookstore waxa la yiraahdaa xarunta lagu iibiyo buugaagta jaamacadda marka wuxuu yiri aan ku kulanno afaafka hore in front waxa weeye waa afaafka hore oo goobta lagu iibiyo bookstore-ka ama goobta lagu iibiyo buugaagta jaamacadda marka bookstore waxa dhaanay waa dukaanka lagu iibiyo buugaagta marka halkan laakiin waxa lagu iibiyaa buugaagta jaamacadda ayaa lagu iibiyaa wuxuu yiri marka perfect waxa dhaanay waa heer sare marka ama perfect wixii okay ayaa la yiraahdaa marka I will see you waxaan idin arki doonaa ama ku arki doonaa labadaba lagu fasiri karaa I will see you waxaan is arki doonaa marka later tonight xilli dambe caawa marka later tonight xilli dambe ama xilligaa la ballamay ayaan is arki doonaa marka intaas halkanna waa keywordskii ama eryaashii ugu muhiimsanaa waxaan dhahnay plan waa qorshe ama qofkii marka uu qorshe uu leeyahay especially waxaan dhahnay wax gaar ah ama wax khaas ah ayaa la yiraahdaa idea waa fikrad invite waxaan dhahnay waa casuumid marka qofka casuumayso drink waxaan dhahnay waa cabis marka waxaad cabayso waa la dhihi karaa laakiin sidoo kalena waxaa loo isticmaali karaa cabida qamriga iyadoo qamriga magacii la sheegin magaciisa lasoo hadal qaadan ayaa la dhihi karaa drink marka taas macnaheedu waxa weeye qamri cabista markaad wax ku xiran tahay laakiin jumlad ay ku jirto ayaa macnahaasi u sameynaysa marka play waxaan dhahnay waa ciyaaris waxay noqon kartaa ciyaarta gacanta laga ciyaaro geemamka video gameska ama waxay noqon kartaa ciyaarta caadiga la ciyaaro sida kubadda oo kalena way noqon kartaa history waxaan dhahnay taariikh appoint waxaan dhahnay waa ballan markii waqti iyo ballan la qabanayo leave out waxaan dhahnay waa banaanka markii qofka loo qaadayo ama waxa banaanka loo qaaday ayaa la yiraahdaa leave out sidoo kale waxaa jira bookstore marka bookstore waa erey ugu dambeeya marka waxaan ku wasanay bookstore waxaan dhahnay waa dukaanka buugaagta lagu iibiyo gaar ahaan kuwa privateka loo leeyahay lacagta ah buugaagta lacagta ah ma ahan maktabad laakiin waa meel lagu iibiyo buugaagta waxay noqon karaan marka buugaagta jaamacadaha ama buugaagta kale caadiga ah marka casharkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta marka casharkan aad buu u koobnaa laakiin waxaa ku jiray erayo aad u muhiimsan marka inta cashar kale ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
fadlan haddii aad ka heshay muuqaalada kanaalkan ku xirnow sidoo kale like saar comment ka soo bixi wax fikrad ah haddii aad qabto sidoo kale ku xirnow